waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in teamka represent garayni doono coalitionka Kenya Kwanza mostly UDA certificateski nominationska la guddoonsiyo subaxan sidaad arkaysaanba waxa ila socdo Professor Cilmi oo ah our deputy governor and our senator Mheshimiwa Shallo aad iyo aad u faraxsanahay inkastoo anaga dad ka qabo walwal aanan ahayn inaan helayno nominations keena sida meelaha kale ka dhacayay oon ogeyn in la siin doono insha Allah laakiin waxa farxad ziyada noo ah subaxan inaan soo qaadano nominations kaasi teamkana ay sugahayaan bas Ramadaanka inuu dhamaado si ay u aadaan wajeer dadka wajeer walaalaha ahna waxaan leenahay teamkan oo la dhaho wajiya Kwanza waxaan rabnaa inay gacan siiyaan dadka dawladda soo dhisaya waa shacabkii wajeer marka waxaan ka codsanaynaa inay garabna siiyaan teamkan sida arkaysaanba waa team ka kooban reer wajeer oo dhan insha Allah intaan ka muuqanina haweenka women rep wajiya waxaan ku faraxsanahay maanta nominationka inaan helay UDA farxad aad aan loo koobi karin waxaan baryayaa reer wajeer kuraha inayna siiyaan madaxweynahana ay soo doortaan William Ruto waayo waa baaska kali oo inuu meel istaagaynin la ogyahay ama aan xisbiga UDA u taaganahay inkastoo qof walba uu magacayga yaqaan haddana oo ku celinaya mar kale magacayga waxa la ahaa Maymuuna Cusmaan Gaawo aniga line upkayga waa ANC governorhayda waxa waaye ugaas Sheekh senator waa Cawil DG-gaygana waa Cabdirashiid reer wajeer oo saas ogaada women rep line up ku jirta ANC waa Maymuuna Cusmaan Gaawo mac salaamada from the onset that the team led by the governor to be Ahmed Ali Mukhtar and Senator Shallo and a very renowned professional Professor Elmi has now been formally granted the nomination certificates, and I believe they will be hitting the ground any time from now, as they have rightly put it, to campaign for themselves, to campaign for our deputy president, who is expected to be the next president, God willing. All I want to state clear here again is to say we appeal to the Wajir people to vote this team. We are quite optimistic that they will deliver. They will deliver and deliver to the expectations of our local community. So we are happy and we wish them well. Anytime from now, we all move to the ground. The Wajir people are eager to listen to the difference this team wants to make. Thank you very much.